Dallada ururada aan dawliga ahayn ee Sonsof ayaa habeenkii xalay tahayd magaalada Hargeysa ku qabatay munaasabad ballaadhan taasi oo ay ku shaacinaysay xarunta xog ururinta la socoshada doorashooyinka Somaliland waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay gudoomiyaha komishanka doorashooyinka Somaliland mas'uuliyiinta saddexda xisbi qaran ee UCUD kulmiye iyo wadani wakiilka midowga Yurub mas'uuliyiinta dallada Sonsof qaar ka mid ah murashaxiinta haweenka iyo xubno kale intii munaasabadani ay socotay waxa madashaasi hadal ka jeediyay gudoomiyaha dallada Sonsof Anwar Cabdiraxmaan Warsame joognaa inaynu kaga hadalno sida ajandaha hor yaalla ku cad saddex qodobka koowaad waxa weeyaan inaynu daahfur u samayno xarun cusub oo ay Sonsof ku soo biirisay hawlihii aynu ka qaban jirnay arrimaha doorashooyinka qodobka labaad waxa weeyaan warbixin ku saabsan hawsha doorashada ka hor assessment ay soo samaysay Sonsof oo lagu eegayay ama loogu kuurgalayay in la ogaado xaaladda doorashada ka hor sida uu loogu diyaar garoobayo iyo sida ay hawluhu yihiin halkaana warbixin ka soo jeedi doona haddii la yidhaahdo waxaa kaloo ku jira warbixintan caawa halkan aan ku soo koobi doono diiwaangelintii codbixiyaha ee ka dhacday waddanka sanadkii aynu soo dhaafnay 2020 dhammaadkiisii inaanu iyagana warbixin kooban aanu kala wadaag geesooda waxaa iyaguna goobtaasi ka hadlay gudoomiyaha guddida doorashooyinka Somaliland Cabdirashiid Maxamed Cali Riyaraac gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee UCUD Engineer Faysal Cali Waraabe gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye Axmed Cabdi Dheere iyo waliba gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro baan runtii komishan ahaan ugu faraxsanahay hawshan caawa Sonsof iyo civil society ay soo bandhigeen waxaan is leenahay waa sida la sheegay waa arrin wanaagsan soo raagay maadaama aad tihiin deedu civil society ay yihiin real owners ama dadkii dalkan iyo lahaa iyo cidii hawsha meeshay ka soo galaan bay runtii waan ku soo dhaweynaynaa waxaa runtii haddaanu komishanka nahay ballan qaadayna sida laga dhawaajiyey annaga ama qorshaha inuu yahay in aanu electionkaas haddii ilaahay ka dhigo si xor oo xalaala u qabanno waxaan aad iyo aad u hambaleynayaa Sonsof oo maanta wax hore aan loo arag inoo samaysay oo inoo samaysay election monitoring operation room wax bacaan bay inoo sheegeen yaan idinka waayin ya qawlkiina iyo ficilkiina هاي سواب السنة. وحوي واحد نقولنا بيت عصب شابتر عصب وتاريخ لنا عصب سومالي نيو هيستوري أي نقولنا دور الشباب. بدل ما نسوقين إن عملية يوصف تكوبات وحوشنا يحيان قرن كيو هيان قرن جمهورية سوماليلاند xusuus reeb bay noqonaysaa oo xusuus fara badan oo aynu haysano goobaha iyo barnaamijka imika ay noo soo bandhigeen waxaan markii hore jecelahay inaan mahadnaqo ciddii finance garaysay mashruucan oo inagala joogo safiirkii iyo mas-uuliyiin kale oo ka socda European Union marka labaad waxaan baleynayaa Sonsof oo iyagoo ka faa'iidaysanaya mashruuca ay keeneen caawada furaya election situation room waa tool loo baahnaa oo wax ka taraya daahfurnaanta doorashada geestiisa wakiilka midowga Yurub Ambassador Nicholas Barlanga oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in codbixinta dadka reer Somaliland u dareeri doonaan 13 bisha May ay noqon doonto fariin garaacda albaabada dalalka jaarka
taasi oo muujin doonta in Somaliland ay tahay dal dimuqraadiya oo dadkeedu si xor ah u doortaan wakiilada u matali doona deegaanka iyo wakiilada. ugu dambeyntii waxaa kulankaasi ka hadashay agaasimaha dalladda Sonsaf Ayaan Xasan oo iyadu soo bandhigtay taageerada ay u hayaan haweenka musharaxiinta ah ee ka qaybgalaya doorashooyinka Somaliland ee la filayo in 13 bisha May ay ka dhacaan Somaliland. u sharaxaya inaan project-kan markii aanu asaasnay 18 dumar ah oo heshiiskii xisbiyadu ay gaadheen taageero aan u muujinaynay iyo 3 qolo oo qolada gabooye ah. imaka waxaanu taageeraynaa 3 qof oo 5 minority-ga iyo 28 dumar ah oo waliba inaan ayaan dhaweyto nagu soo biirtay oo nagu talagalnay inaanu caawin siman u sameeyno dumarka maadaama ay parliamentarianku. Maxamed Umar Daariq, RTN, Hargeysa. Somtel isgaarsiin socdaasho satellite-ka lagu xiray sakanka go'een bay Somtel nasiisay kaalayo la saaxiib. Somtel waxay idin haysaa internet xawaare sare leh ku shubo $5 oo kaliya oo hel 6 GB ku shubo $10 oo hel 13 GB ku shubo $20 oo hel 28 GB ku shubo $30 oo hel 40 GB adiga oo kaga shubanaya adeega casriga ah ee dahab. sidoo kale ku raaxayso adeega muraad ku shubo $3 oo hel 1000 daqiiqo oo ku hadala ku shubo $5 oo hel 2000 oo daqiiqo. wow kala xiriir faahfaahintaas dheeriyana nambarka macaamiisha ee shaashada kaaga muuqda 151 ama 152 ku raaxayso sim card-ka Somtel.